بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب waxaan rabaa inaan war-saxaafadeed ama war-murtiyeed kan aan kaga hadlo qodobo dhowr ah oo muhiim ah. Sidaad la socotaan, dhacdadii ka dhacday maalintii dhaweyto ama habeenkii dhaweyd meesha la yiraahdo Garoowe oo foosha xumayd oo waxashnimada ahayd oo wax allaale iyo waxay sal ku lahayd aanay jirinin, kaliya caqli xumo iyo kibir kaliya salka ku haysay, laakiin wax weheliyaa aanay jirin. marka koowaad waxaan uga tacsiyeynayaa shacabka reer Puntland ama shacabka Soomaaliyeed oo dhan. waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay dhacdadaas, in iyaga iyo eheladoodii waxaan leeyahay Ilaahay Jannatul Firdaws ka waraabiyo. gacan ka xaq daran baa dishay, duulaan baa loogu yimi. Ilaahay ha u naxariisto. eheladii ay ka dhinteenna waxaan leeyahay samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo, wax ka khayr badan ama ciwad khayr qabana Allah ugu bedelo. nafteydana waan uga tacsiyeynayaa oo waxaan uga tacsiyeynayaa wixii iyo qaabkii hay'ad dawliya oo hay'adii dalka ugu sarreysay oo baarlamaanka oo aan anigu oday u ahaa oo wixii lagu kacay dalka sharciyadiisa ilaalinaysay in sharciyadii la laalo, systemkii dawladnimada laga baxo, mid u eg qabiil u eg oo qaab daranna maxay ahayd in lagu dhaqmo. taasna waxa weeye aniga kursigu muhiim lama ahayn, laakiin waxa muhiim ay ahayd sida wax u dhacayaan ama in dalku nidaam iyo system uu lahaa ka in la isu maro. waxaana muuqata in la laalay oo uu laalmay. taas macnaheedu waxay tahay wax Puntland la yiraahdo marka ma jirto ay qoladaasi si cad u tiri, maadaama ay sharciyadeedii laaleen. waxay si cad u yiraahdeen Puntland wax la yiraahdo ma jirto, wax lagu heshiiyeyna ma jiraan. hadal afka laga yiraahdo kaliya ma, laakiin ficil bay u yiraahdeen. taasna waxa weeye dadka reer Puntland iyo naftayda iyo eheladii wax ka dhinteen baan uga tacsiinaya. intaa kadib, dadka reer Puntland waxaan leeyahay, waan la hadlayo, Puntland badbaado u baahan tahay. jar bay ka lulataa. mabaadi'dii lagu dhisay iyo waxyaabihii loo dhisay iyo ahdaaftii laga lahaana way ka weecatay. wada lahaanshihii iyo wadaagii lagu wada dhistana way ka weecatay. waxay maraysaa in koox yari ay u afduuban tahay. waxaan leeyahay badbaaday u baahan tahay. haddaan la badbaadinna meel fog baa laga dooni doonaa sida ay hadda wax u wadaan kooxdaasi. waayo waa koox aan ehelna u lahayn, awooddeedana aan lahayn. sidaa laajligeed Puntland, reer Puntland oo badbaaday u baahan tahay. waxaana leeyahay wixii tala kale heli kara oo reer Puntlandihi ha isu yimaadeen, hana tashadeen, Puntlandna hala badbaadiyo. qodobkan intaasaan kaga gudbaya. qodobka saddexaad aan ka hadli doono waxa weeye, waxaan la hadlayaa shacabweynaha degan gobolada Sanaag iyo Highland iyo Bari oo ay sida gaarka u taabanaysay arrintani ama sida gaarka xanuunkani u taabanayay. waxaan leeyahay iyaga dhaqan looma xeerin oo nidaam iyo system looma xeerin oo tolnimo iyo wixii la isu sheegi jiray looma xeerin oo bini aadanimo looma xeerin oo meel u badqabtaa ma jirto. waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa dal iyo dabadba wixii joogaa tala inay isugu yimaadaan degdeg ah, kana tashadaan qaabkii ay Puntland loo dhiilgarayn lahaayeen, maadaama ay ka weecatay mabaadi'dii iyo ahdaaftii iyo wadalaanshihii lagu dhisay. tala degdeg ka yeesha ayaan leeyahay. baaqaasaan u soo jeedinayaa, waana rajaynayaa inay aqbalaan
oo qaataan waxaana leeyahay si degdega in la isugu yimaado anigana insha Allah waxaan rajaynayaa dadku way eegayaan war hadal bayna iga sugayaan iyo wax iga soo baxa kana ugu horeeya waxaan ugu baaqayaa shir wada tashi ah oo la isugu yimaado waxaan kaloo insha Allah samayn doonaa aniguna waxaan mari doonaa mandaqada gabi ahaan waan mari doonaa mandaqada waayo dadka codsaday especially magaalooyinka waaweyn insha Allah waan tagi doonaa waana la kulmi doonaa talo wixii ay qabaanna waa ururin doonaa markuu soo dhamaado safarkaas iyo socodkaasina insha Allah wixii ka soo baxa waan idin la wadaagi doonaa laakiin waxaad ogaataan oo ku tashataan oo u weel qaadaan oo isu sheegtaan inuu noqdo in la isu yimaado lana tashado iyagana intaas ayaan leeyahay waxaan leeyahay istajiya niyadiinu hadda ganaato wax waa iska dhacaan waana dhici doonaan waana dhici jireen laakiin asal waxa uu noqda hadba qaabka loola dhiilgareeyo iyo sida looga tashado marka waxaan leeyahay taladu yay idinka xumaanin iyagana intasan ka gudbaya waxaan rabaa dadka degan laftigoodu aan isku dantanahay ee degan Sool gobolka Sool iyo bari oo aan hore uga dhawaajiyay isku dan baanu nahay waa soo dhaweynaya taladooda iyo wax wada qabsigooda iyo maxay ahaydeenay taageeradooda waan soo dhaweynaya waxaan kaloo soo dhaweynayaa cid allaale ciddii ka xumaatay dhibaatadii foosha xumayd ee waxashnimada ahayd ee ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Garoowe cid allaale ciddii ka xumaatay waan soo dhaweynayaa waan uga mahad celinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin wixii wax garanayay oo ka damqaday oo u arkayay waxaasi wax Puntland iyo ciddii lagu sameeyay mid aan qurux badnayn taana intaas baan kaga gudbayaa waxaan ku gabagabeynayaa saxaafadeedkayga qolada saxaafadda baan rabaa inaan kelmad iraado kelmadda oranaya waxa weeye maalmahan waxaan maqlay iyagoo leh gudoomiyihii hore anu waxaan soo haystaa gudoomiyihii xaq ah isuma haystee waan ahay waa sifo sharci aan ku imi sifo sharci oo baan gudoonka ku waay kara taasina may dhicinin markay dhacdo waan ogolahay laakiin saxaafadda waxaan uga digayaa inay ka waantoobaan inay yiraahdaan gudoomiyihii hore maadaama aanay ahayn wax sharci ah wixii la dhoobdhoobayay iyo wixii la taagtaagay waxaana daliil idinku ah weerar habeenimo ah oo xaruntii dalka ugu sarreysay ama kuwa weeraraya ay ka soo bixi jireen la weeraray dadna lagu laayay shacab iyo ilaaladiiba waxa kaloo garan kartaan oo yana la yaab leh in haddana dhiiggii oo yaala iyo meydkii oo yaala dhaqaale iyo lacag la bixinayay si aroortii la isugu yimaado oo wax loo dhoobdhoobo bal inta gef iyo inta khalado meesha ku kulmay hantidii ummadda waa la isticmaalay oo waxa loo isticmaalay waxaan sax ahayn iyadoo ummaddu dhinac walba uga baahan dhinac walba arrimo bulshada uga baahan ayaa hantidoodii waxa loo isticmaalay waxaan sax ahayn kalabaad wuxuu ahaa weerar qaawan oo waxashnimo ah kan saddexaad wuxuu ahaa habeenimo kan afraad wuxuu ahaa baarlamaanka xidhnaa oo sifo sharciya ku xidhnaa in xoog lagu furto waxaasoo dhan marka la isu geeyo waxay noqonayaan sharci darro iyo sharciyadii Puntland oo lagu ciyaaray lana laalay wataan hore u sheegay oo dhawaaqaasi uu yahay ama faacishaasi marka la ururiyo wax Puntland la yiraahdaa ma jirto laakiin koox danaysata baa jirta marka insha Allah taladeedina horaan uga soo jeediyay saxaafaddana intaasaan leeyahay anu gudoomiyihii xaq ahaa ee dawladda Puntland baan ahay waana ahaan doonaa haddii alla yiraahdo wax kastay dhoobdhoobaan ilaa laga helayo tala dee dadka aan matelo reer Puntland ha ahaadeen ama gobolada gaarka aan u sii matelo ha ahaadeene ay tala rasmiya ka gaarayaan anuun baa ahaan doona gudoomiyihii baarlamaanka ee xaq ahaa saxaafadda marka waxaan leeyahay insha Allah iyo hadalku idinka xumaanin mar dambena ayay soo bixin gudoomiyihii hore waana mahadsantihiin wada shaqayntiina fiican hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh